waxaan haatan u yeedhayaa muhiimadii shirkan ama munaasabadan ama xafladan soo dhaweynta aan u qabanay garaad bashiir garaad maqtal garaad bashiir garaad axmed garaad maqtal daahir ku soo dhawow mudane mikrofoonka adiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد وهرين دكتور رياشة شرفت له ربي يقبله ضمانتي وحنيقا ما العلينا يا سودوين سودويسين قاليقا ديرهم ربتي أنا كوب كريم دريكي مانتا waan idinka mahadcelinayaa marka labaad waxaan mahadcelinayaa mas'uuliyiintii soo qabanqaabisay mas'uuliyiintii jaaliyadda shirka soo qabanqaabisay iyadana waan mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan mahadcelinayaa dowladda Kenya oo runtii u noqotay halgankeena gundhig ama muxuu ahaa gabaad u noqotay muddo dheer ayaan si gaar ugu mahadcelinayaa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dowladdii ku dhiibtay ee saarka ku gashay miyaad wax mahad u haysaa mahaddu waxa aniga gaaray ma halganka weeyaan waxaynu u danaynaynaa ama aynu ka hadlayno runtii habeenna niyad xumo uma qaadin sababtuna waxa weeyaan waxay u qabanaysay halganka ka weynaa ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd masalaan shaqo umaana imanin kormeerna ma ahayn laakiin salaan eheltinimo oo digu ka tihiin bay ahayd sidaas aan u jeclaaday inaan maanta idinkala soo qayb galo haddii aan usoo dhaadhaco hadal yar oo kooban oo ku saabsan halganka wax yar baan doonaya inaan ka hormariyay inkastoo guddoomiyihii jawaabta uu maalin dhow halkeeda kaga tegey wax badan oo war ahoo idinku seeganay ma u jiro laakiin waxaa laga yaabaa intii guddoomiyadu kasii maqnaa waxyaabo yaryar oo shaqadiisana hore usii maqlayseen oo isbedello oo ka socda xagga dowladda Itoobiya inay jiraan hadalkaa waxaan rabaa inaan hoosta ugu xariiqo in aynu maskaxda ku hayno waxa iman kara berri iyo waxa halgankeenu ku dambayn doono ama ku dambayn karayo halgankii dheeraha aynu ku soo jiray aan aaminsanahay inuu sabab u ahaa burburkii ku dhacay dowladdii cadowga ahayd shacabka Itoobiya u horseeday in lagu dhiiran karo xukuumaddii nacabka ahayd oo laga adkaan karo waxa weeyaan isbedelkaas way ku neefsanay nacaw baynu dareennay aynu dareenno fursad bayna siisay waxaan rajaynaynaa fursadda inaan ka faa'iidaysano iyadoo fursaddu sideeda tahay waxyaabaha la fili karaya inay ka yimaadaan waxaa laga yaabaa Itoobiya inay isbedello ka yimaadaan cusub oo kuwii hadda aynu ku dhex jiray aan ahayn hore sidaynu u maqalay isbedelka Itoobiya ka socda weli ma uuna dhammaystirmin wuxuu ku dambayn doonaa ciidina ma oga waxaa laga yaabaa shacabkeenu in wax badan oo inaga mido jaaliyadaheenu ay kow ka yihiin inay aaminsan yihiin in la xoroobay ama calaqalla muxuu ahaaye gulcooma la sii yahay oo xorriyaddii lagu sii socdo oo hawsha xooggeedii dhinaca inooga dhammaatay mararka qaarkood la odhanayo dhaqaalo looma baahna innagaaba xaggaa hadda ka sugayna dhaqaalo laakiin waxaan jecelnahay inaan isxusuusino Itoobiya meesha ay maraysa iyo waxa suurtagalka inay ka yimaadaan Itoobiya inagoo rajo fiican weli qabna oo rajo go'aynin oo weli dadaal fiican inaan nabad wax ku gaarno doonayna hadafkeenii aynu muddada dheer soo daba soconnay aynu nafta iyo maalka u huray inagii oo rajo fiican ka qabna inaynu si nabada ku sii wadano haddana wax kasta filo in loo diyaargaroobo wax fiican isbedelka Itoobiya ka socda qayb ka mid ah waxa weeyaan xukuumadda talada haysaay qorshe cusub ay soo rogtay qorshahaasina waxa weeyaan in dowladda laga sameeyo ama waddanka laga sameeyo xisbi keli ah oo waddanka ka taliya taa macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee inaguna jaaniskiisii ka faa'iidaysanay wuxuu ka hor imanayaa nidaamkii ismaamulka ahaa ee sheegashada inaynu degaan gaar u leenahay uu ka hor imanayaa nidaamkii federaaliga ahaa ee waxna la kala lahaa waxna la isku lahaa ayuu ka hor imanayaa hadday suurtagal noqoto oo uu guulaysto isbedelkaas ama la doonaya hal xisbi lagu samaysto lana ansixiyey oo axsaab hadda sideedii ay ku midowday haddii uu hirgalo
waxa ka iman doona waxaan garan karna ma aha waxaynaan u garan karaynin waxaa laga yaabaa dabada inuu ku hayo oo aada loo filayaa dabada inuu ku hayo in la doonayo in la soo celiyo nidaamkii kaligitaniska ahaa ee dowladda dhexe awoodda badnayd maamulada kililadana la baabi'inayo ama la naaqusayo taa waxa ka dambeeyana waad garan karaysaa waxaa suurtagal ah in loo qaybiyo Ethiopia 4 ama 5 qaybood oo hab maamuleed loo qaybinayo la oranayo bariga iyo koonfurta iyo waqooyiga iyo dhexda iyo waxa la mid ah taas oo macnaheedu tahay in uusan jiri doonin waxa la yiraahdo qowmiyad nidaam qowmi ah uusan jiri doonin baa suurtagal ah taa haddii ay timaado innaguna waxaynu higsanaynay aynu ognahay waxa inoo horseedi karta waynu garanayna sidaa darteed ciddii u malaynaysa inuu halgankii midhiisiida dhow yahay ciddii u malaynaysa inaynu taynu doorasho gallo oo aynu doorashada ku durdurino maadaama aynu taageero badan leenahay inaynu dowlad noqonayno qaaraha dambe laynooga baahanaynin ama midnimo dambe laynooga baahanaynin ciddii aaminsan dib ha u xisaabtanto wax ka imanaya laga garanayo intaas waa xog yar weyn haddii aan marka ka soo gudbo waxaan jeclahay wax yar inaan ka idhaahdo halganka iyo ururnimada cidna looga sheekayn maayo carruurta yareeda hadda soo koraysa mooyaane halganka dhibaatadii aynuu soo marray oo meel kale inagoon eegin jaaliyadantada Nairobi ama East Africa dhibkii ay u soo martay kaliya haddaynu xisaabino ee dil ahaa ee dhac ahaa ee shaqo qabasho ahaa qof waliba wuu qiyaasi karaa intaa waxyeello kale la gaarin cabsidii iyo argagixii inagu jiray qof waliba wuu qiyaasi karaa halgankii noocaa ahaa weli waxa weeye isaga baynu daba soconaa waxaana ku dheeraynaynaa waxyaabaha hadda aan sheegahayo taa macnaheedu waxaa weeyaan waxay u baahan tahay inaynu si hor leh inaynu guddiga dhiishiisa uga dhigno innagu ama aynu gaarsiino xurriyad shacabka la ogaadeynaya ama jiilka yaryaree soo kacaya aynu ku wareejino sidii horeba u ahaan jirtay laakiin geedi dheer baa weli naga horeeya geedigaananu diyaargaroonaan u baahannahay geedigaa waxaa loogu diyaargaroobi karaa innagoo ilaalina wixii isu keenay wixii aynu ku midownay wixii aynu ku walaalownay innagoo ilaalina wixii aynu guusha ku soo gaadhnay ee 30 sano dowladda Itoobiya iyo caalam fara badan oo shisheeye sokeeyaba leh oo isugu keentegay uu ugu guuldaraystay inuu halgankeena baabi'iyo walla wiiqay shacabkeeni waa la wiiqay xooggeeni waa la wiiqay laakiin moraalkeeni iyo qalbigeeni laba wiiqin mabda'eenina laynaguma qasbayna ka noqonay sidaa daraaddeed waxa weeyaan waxaa isu keenay ee aynu guushaana ku gaadhnay waxa weeyaan waa midnimo iyo ururnimo weeye haddii aan mid la noqonin waxay waad garanaysaa inayna waxba qaban karayn waxba ku noqon maayo sheekhu aayadihii uu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan ifkan iyo koonkan abuuray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyuu ku socdo lagu amrahayey innagana cashirka laynooga dhigayay inaynu ku tababaranno loogu talagalay waxa weeyaan midnimadu macnaha ay leedahay ayaa laynagu barayay sidaa darteed midnimo waa asalka halgankeena weeyaan asalka waxa aynu isugu nimidna waa midnimadaas waxaa marka imanaysa maxaynu ku midownay waxaynu ku midownay mabaadii baynu ku midownay ganacsi isuguma inaan imanin qabiil isuguma inaan imanin guruub iyo saaxiibtinimana isuguma inaan imanin waxaynu isugu nimid mabaadii weyn mabaadiidaas qof kasta oo reebadeeliya oo mabda'a aaminsan midabkuu doona ha lahaado muuqaalkuu doona ha lahaado xaafaddu doona ha ka soo jeedo walaalkeen buu ahaanaya qof kasta oo ka soo horjeedana waxa weeye waynu kala duwannahay mararka qaarkoodna cadowga inuu noqdaaba laga yaaba haddii uu inaga hor yimaado oo mabda'eenna inuu inagula dagaalamo ay noqotana cadowgeen buu isu bedelaya waad ogtihiin waddadii dheereedaynu soo maray
iyo wixii aynu soo maray inteenan baa iskaga soo hadhay inta la mid sababtaynu isugu soo hadhnay innagun baa isku lafadiray soo ma isku hilbadiray waxa la wixii kale dadkeenima intanun baa dadkaynu saaxiibada wada ahayn aqrabada wada ahayn haddii kor loo sii kacana qabaa'ilka aynu wada ahayn intan ma aha iyo intan la mida midna way ka badan yihiin laakiin inteenna waxaa isku keen reebay ee isku soo keen reebay ee aynu isugu hilbadiray waxa weeyaan hal mabda baynu aaminsanayn mabda'aas oo leh shuruuc iyo xeerar lagu hago oo la raaco taasaynu ku soo gaadhnay meel haddii aynu aragno in halgankeenna mabaadidiisa iyo wixiisa uu cid shaki ka galo in la fadhiisto oo la isweydiiyo weeye oo muddo dheer baynu soo soconay wax dhaliilaa jirta haddii habdhaqankii iyo shuruucdii kale ee mabaadiida aan ahayn laakiin lagu gaarayay waxyaabo dhaliil laga dareemo in la isweydiiyo weeye si saraaxa leh in intii la isu soo hor fadhiistay la isweydiiyo weeye naftuuraha walaalkii waa naftuura kale weeye aabbihii iyo hooyadiiba marar fara badan wixii waajibka diiniga aan ka ahayn waxa weeyaan isagaa uga sokeeyo cidna laydin tilmaami maayo waxaan xusuustaa meelo fara badan rag badan oo naftooda horyaalo meesha iga muuqdana ay garanayaan xaaladihii aynu ku jirray iyo marar fara badan meehe intii badnaydba dadkiina raadsanayey dadkii madaxeenna gadayey inay ahaayeen dadka inoogu aqrabaysan inoogu dhow inay ahaayeen qabiil intii laga soo tago dadka inoogu dhow inay ahaayeen baan garanaynaa waxaan iloobaynin annaga oo duruuf adag soo marray dhib badan soo marray naftood horyaalo mayid ka soo tallaabsannay oo gaajo iyo oor u dhintay in aanu ku soo baxno reer aanu kolkaa is leenahay ehelkii baa u timaadeen oo aanu aaminsannahay inaanu ka soo baxnay duruuftii adkayd oo ay noqotay dabinkiina lagu qaban lahaa waxaan iloobaynin naftood horyaal la qabtay oo reerkaasi uu qabtay ehelka ah oo markii dambe geel isku maray inaan cadowga loo dhiibin weydiistay iyagu inay dilaan markii dambena ay ku dileen meeshaas taas waxaan u soo qaadanayaa shalay toole ninka saa samaynayay ee naftuuraha waxaa ku samaynayay maanta inuu adiga jeel kula noqdo naftuurihii kale ee walaalkaa ahaa ee adiga kula dhimanayeyna in uu noqdo muxuu ahaaye cadow ama ninkaa fikirdoonu noqdo waxyaabaha qariibka ah bay ka mid tahay aynu meelahan mararka qaarkood ugula imanayno halganka intaynu soconno ee waddadaa dheer aynu hayno waxaa loo baahan yahay inaynu ogaano shalay markii xabaddu dhacaysay markaynu magaalada joognay inaad aabbaha iyo hooyadaa ka qariso meesha aad joogto teleefonkaaga aad ka qariso laakiin qof kale oo jeelka ah inaad siiso oo tidhahda halkaasaan joogaa iga warhay waxa keenayana waxbuu ahaa mabda buu ahaa waxaa loo baahan yahay marka mabdii noocaa ahaa haddii aynu doonayno inaynu guul ka gaadhno halgankeena waxaynu u baahannahay waddadaas inaynu qaadno inaynu inagu cid walba iska xigno taa macnaheedu ma aha inaynu mar walbaba boqolkiiba boqol isku fikir noqonayna maaha macnaheedu waynu kala fikir duwanaanaynaa fikir duwanaanshahaasi wuxuu keenaa wanaag buu keenaa maxaa yeelay dadku hadday hal fikir yihiin waxaa laga yaabaa marar fara badan inayna waxbaba qiimaynin oo la iska socdo oo la yidhaahdo maarta xol buu iska toosan yihin laakiin marka ay timaado marka ay dhacdo laakiin inaynu kala fikir duwanaano waxaa imanayna inaynu doodno wax isweydiino dhinac walba ka eegno dhinacaynu ka jilicsannahay iyo dhinacaynu ka adagnahay inaynu ka eegno kolka u dambaysana waddada fiican inaynu qaadano oo inu adayg iyo wanaag ka qaadnaa laga yaabo fikir kala duwanaanshuhu ma aha inuu xumaan keeno ma aha inaynu isu nahay cadow ama muxuu ahaye dad aan isku danahayn innagoo haldan wada ilaalinayna inaynu kala fikir duwanaan karno fikir duwaniduna waxa weeyaan xagganaan ka fiican oo waddadaynu ku gaadhaynaa iyo xagganaa ka fiican oo waddadaynu ku gaadhaynaa wey wax kale oo macno ay leedahay ma jirto sidaa darteed naftaduuriyaasha ee qaaliga ee shaqada iyo halganka dheer soo wada waday ee walaalaha haddii ay dhacdo inay yimaadaan waxyaabo lagu kala fikir duwan yahay
waxaan u baahannahay naftaduurayaashu inay bartaan tabta niyadda wanaagsan ee ah in laysa soo hor fadhiisto naftuuraha kale in uu naftuuraha wax ka tabanayaayo uu hor sheego isagoo waxba qarinaynin maxaa yeelay xumaani kuma jirto inuu caddeeyo yidhaahdo hebelow heblaayo waxaa iyo waxaasaad samaysay miyay kaa noqotay mise ula kacbaad u samaysay marka la isdhacsiiyo waxaa loo baahan yahay naftuuraha kale inuu ka garaabo uu walaalkii yidhaahdo way iga noqotay ama saasaa ismoodsiiyey raalli aho ka kaleba inuu halkaa ku sabro oo hawshii kusii socoto haddii ayna saa ahayn oo naftuurahan waxa uu samaynayo uu ku saxsan yahayna waxaa weeye ka kale ee walaalkii ee wax ka sheeganaya inuu ka dhaadhiciyo uu ka qanciyo oo uu tuso waxa uu samaynayaa inuu isagu tiisu saxsan tahay isagoo aan maaragtay hadalku taagtaagnayn waxbana ayna jirin taasaan u baahanay waddada loo marayana waxaa weeye waa nidaamka ururnimada wey wax walbana heer buu leeyahay heerka jaaliyadeed waxaa looga baahanya jaaliyadda iyadoo hawlaheeda inay xallisato iyadoo maraysa wadooyinkii loogu talagalay ee ururnimada ahaa iyo xeerkii iyadoo ku dhaqmaya inay dhaliilaha iyaga dhexdooda inay xalliyaan wey haddii ay dhacdo dhaliilaha dhexdooda yaalla inaynan iyaga wax ka soo baxaya ahayn ee meel kale saamayn wax kaga yeelanaya ay tahay waxaa wanaagsan inay u daayaan cidda ay khusayso oo iyagu ay la socodsiiyaan oo yidhaahdaan arrintaasaa jirta annagana way naga sarraysaa arrintaa waxaan u baahannahay in wax laga qabto jawaabdu kor ilaa hoos iyo hoos ilaa kor waa la isku xidhan yahay dariiq iyo qaab wax laysugu gudbiyaa jira arrinta kale waxaa weeye qofka naftuuraha ah waxaa looga baahan yahay in uu ogaado waxa uu meesha u fadhiyo maaha inaan sacab raacno maaha inaan hebel dhowrano waxa weeyaan qofka naftuuraha ee waktigiisii soo huray ee dhaqaalihiisii huray ee cimrigiisii ku soo dhammaystay waxaan uu ku dhammaysanaya cimrigiisii waxaa loo baahan yahay naftuurahaas inuu si dhab ah oo waaqica u dareensan yahay baa la rabaa haddii ay kale si dhibibda waddada uga leexanaysaa waxaa loo baahan yahay qofku inuu xisaabtamo mabaadii baa keentay meesha dadkan kada kale ee walaaladii ah wax kaloo isu keenay ma jiro mabda baa isu keenay shuruucdaana way ka wada dhexaysaa shaqaduna way ka wada dhexaysaa waa in uu isagu fikirkiisa shaksiga ah uu isagoo mabaadiidaa ilaalinaya shaqadiina si loogu talagala u qabanaya in uu fikirkiisa shaksiga ah ku shaqeeyaa loo baahanya bini-aadmigu saamayn buu isku wada leeyahay waa laga yaabaa inuu saaxiibkaa saamayn kugu yeesho uu dhexda wax kugu sheegay uu yidhahdo sidaynu nahay laakiin waxaa la rabaa qofku shaksigii isagaa dantiisii u soo banbaxay oo shaqadan hore isu soo qaawiyey lama rabo marka qofku inuu naftiisa khiyaamo ummaddiisa inuu khiyaamana lama rabo haddii ay taasi dhacdana dadaalkeenu meel ma tegayo shaksi kasta waxaa loo baahan yahay mabda'a uu higsanayo iyo hawsha la qabanayo inuu isagu fikirkiisa shaksiga ku cabiro inuu waxaan saxsan yahay inuu saxsanayn taa hadday timaado wax xumaanaya ma jiro maxaa yeelay mara fara badan waxaad arkaysaa hawshu inayna sidaa ahayn oo mararka qaarkood maqlayso shuxshuux baa jirta shuxshuux macnaheedu af soomaaliga marka la fasirana ama guruub baa jira ama qabiil baa jira wey macnaha dad baa si gaara wax isugu raacaya wey saxna maaha shaksiga dantii reerkiisa cid soo kaxaysa ma jirto waxaan ka go-ayana ciday uga go-aysa u qalamale isaga bay ka go-an tahay haddii ayna sidaa ahayn oo naftiruuhu waxaan kada fahan dhab una ahayn oo una dar ilaahay iyo dalkiisa inuu wax u qabto uusan u fadhiin meesha ee hebel dhowrasho tahay waxaa weeye innagana ummadda inteeda kalena ha hoosaasini adiguna waktigaaga iska dhumin gaar ahaan dhalinyarta yaryar ee soo kaxaysa ee halganka xoogga u ah berrina aan rajaynayna hadduu halka kusii daba dheeraaday ee noqon doonaa shucladii halganka isla sii wareeginahay waxaan u baahannahay fikir wanaagsan inay ku barbaaraan fikir gobonnimo doonimo inay ku barbaaraan fikir isku kalsooni ah oo shaksigu isagu fikirkiisa iyo maskaxdiisa uu ku socdo inay ku barbaaraan baan rabnaa maxaa yeelay haddii kale berri mustaqbalkeena mugdi buu gelaya
وهذوكتين جبهات والبابا أنا نفس سبسبة كيوب بكذلتي سبسبة كينا نصر الله عم بكذا شيء بدون بكذلتي وحنا كذا وحنا سوق هذا يدبك سيق هذا تذكر اللي يرتاح فكر كذا نبتة وفهسن نفتود يمال كودين وقرانا ديار هو هذه تاسي مركز ست الله عنكوك شو وحبوا مال حب اللي بتشرنا يساس مركز عنو أنت نهار هذا بيسك فردني أنت نالبدا حوق إنك وقت إنك دي عبوه بطيء وهوش النادي متدير بارن هالك سوق اللي هذا مال وحي مال نلاقي شيء وأنا دام كتبنا يو ما نقول اللي حنا مالها لكن اللي يرتاير يركع ويل اللي يقربها وحن شغلها إنه حقيقة قرن وده فهمان قفنا قف وبتشوفه قف والبا ومدي سيرو وحطره آخر دي سنة ولا شيء هدي وسمع رتي كل سنين وسافر جيرودي هدي كلامه وحوي وائل ونقضوا قف كرر الشيء قضية وحايدة مرة فرق بدنا وحلاقي يا بين وحلاقي شيء ولي هذا هبل بس اسمي هبل بكنا حيالها نوع عاصو كلا وحوي لو دكارعيه ما هذا ادو يسوقتay waxa tahay taariikhdu ma aha wax afka lagu qoro ceebtuna ma aha wax burush intii la ismarmariyo ku raacaya ma aha halka bin soo wada galay shakhsi walba meel buu ku qoray kadeeqsiga waan ognahay kageesiga waan ognahay mid walba meel buu inuu qoray marka haddii wax kasta lagu sheego taariikh kasta oo wanaagsan lagu qoro oo aan ahayn waxa macna ma sameynayso haddii wax kasta oo xumaana laga sheego waxa macna ma sameynayso inaad waqti ku dhumiso laba rabo waxa la rabaa qofka nafti hore kalsooni isagoo qaba inuu ilaahay tawakkalo oo mabdigiisaas uu si cad u shaqeeyo haddii uu saa ku tagana ilaahay baa ka ajirsiin haddii uu wax ku gaadhay isagoo noolna isagaa u ahay shacabkiisuna abaalkaa way haynayaan taa marka dhallinyarada ayaa si gaara ugu sii dardaarmaya waxaa kale oo dhallinyarada faraya oo aan iyadan u sheegaya marar fara badan waxaa jira waxa la yidhahda social media wax la yidhahdaa jira social media waa teknolojiyad nagu cusub weeye waa teknolojiyo haddii si fiican loo isticmaalana guul badan laga gaadho kacdoonkii Itoobiya aad weydeen wixii lagu dumiyey teknolojiyada ugu ah waxa ugu dhaqsaha badan ee dadka lagu abaabuli karo ee hal mar dadka lagu kicin karo fariimaha durba la isugu gaarsiin karo waa teknolojiyada haddii si xun loo isticmaalana waxa weeyaan waxa ummadda ugu burburin waa iyada waxaa jirta ummadda dhaqankeena waxay lahaan jirtay classes bay ahaan jirtay dabaqaday lahayd dabaqad culimaa jirtay kuwa caaqilina wax garadaa jiray ruuxo meel buu ku qoraa kuwa deeqsiinaa jiray oo la yaqaano reebel loo hagaajiya leedahay caawa marka la yimaado ku hadday balaayo dhacdo oo la yidhahdo hebel ma joogaa oo maaragtay reeraha dagaalgeliyaa jiri jiray waxaa sidoo kale jiri jiray qayb dhan oo ummadda ka mid ah oo aan codkeeda bulshada ayna ka tirsanayn oo magacyo u bixin jiray waa gurdamo waa kankada dad waalwaalan dadkii nooca ahaa ee bulshadu codkooda maqli jirin ayaa maanta waxay heleen inay ummaddii hormuud u noqdaan dhalinyarta way yaqaanaan baanu marayn dadka loogu raacraaca badan yahay ee loogu jecel yahay ee ugu taabacaada badan waa inta waalwaalan wey inta ugu aflagaadada iyo inta ugu xumaha badan wey waxay noqotay marka dabeeco meesha noocaas oo kale marka sabab waxa inaga dhaxdeena loola aado iyadana ma aanan garan inagu urbaynu nahay wax kasta inaga dhaxmanaya halka baynu ku jiraa shirarkan oo kale inay isugu imaanaa halkan oo kale intaynu u qabanno oo inuu ku soo talagalno in makarafoonada meel iska dhignay iyo baalahan kala wada iftiimaya inaynu ku wada hadalno inuu ku doodno weey haddii ka fursan weydo فعلا أي نسكت ده على الكراسي سلنا عم عالم كهرو مرة بيكاد عالم لكن إن أكلفته وحياة هم يخدعها إن محو هاي سوشيال ميديا لديكم ينو شيء إن لا ولا مذاقنا بعد وين إنه تصينا إنه شبني مش شيء إنه تصينا سبيشة إنه نالو مستحيل إنه كسبينين إنك لا قطع مركب ما أنا قرنا يدا dhalinyarada marka waxa looga baahan yahay inay ka digtoonaadaan
iyagu galayo ha samaystaan ururka gaarkooda u ah jaaliyadda gaarkeeda ha samaysato jaaliyadaha kale meel isugu wada yimaadaan ha samaystaan shirar ha qabsadaan nidaamka ururku sidaas uu qabaa in galayooga jabhadda lagu doodo oo lagu kala dhergo oo isku saxo yaa loogu talagalay laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha ku tumashada xeerka marar fara badan waxaad arkaysaa nin walba wuxuu leeyahay xeerka lagu tuntay kana la sameeynaya oo yaa ku tumanin xogta waa sir urur weeye kolkaas soo dhigto oo public Soomaali iyo gaal iyo islaam baa ay daawanayaan cadawgeeni daawanaya kolkaas soo dhigto oo jaaliyadda sharafeed bay iskala daashay hebel baa tuuga kolkaas soo dhigto sirtii ururkaad bixisay khiyaamo qaran baad gashay cid kaa dambi weyni ma jirto marka hawsha ayadana laga digtoonaado waa arrin aad khatar ah wey waxa weeyaan haddii aad wanaag deedeyso marar fara badan waxaa laga yaabaa inaad isleedahay ninka saaxiibka aad kala fikir duwanaateen aad ka raysid oo maaragtay xumihiisa bannaanka soo dhan haddaad qofkii jiraayafeed intaa lee gaarsiisay oo halkaa gaarsiisay bari ka soo qaad haddii la heshiiyey ka waran si aad wada shaqaynaysaa si aad ugu horumarinaysaa markaa waqtaasi ku bogsiin kara marka waxay u baahan tahay tallaabada aan qaadayno iyo ficilka aynu samaynayno inuu noqdo ficil xisaabsan aynu garanayno dhinacaan hadda ka rabta mooye dhinaca kale inaad ka eegto oo xumaanta ka iman karta inay kugu cabiran tahay baa la rabaa taa haddii aad samayn weydo oo markaa una xamaasadda ku hayso aad hal dhinac ka eegto adigu bay kugu soo noqonaysaa wixii marka aad u ordaysay iyo wixii aad dhisaysay iyo ururkii aad difaacaysay ee markaa suuqa ninka hadla aad bakoorada madax kaga dhufanaysay adigu ma burburinaya marka maxaad iska daalinaysaa marka waxay u baahan tahay dhalinyarada ugu badan waxyaabaha wax qorqora dhalinyarada waxaan leeyahay yayna idinka xumaanin koritaanku fahamka halgankiisa idinka xumaanin nidaamka xeerka ururka ha lagu dhaqmo mabaadi'da ururka ha la ilaaliyo haddii intaa la waayo oo ayna suurtagal ahayn waxaa ila quman halganka qolba meel bay gaarsiisaa soo maaha innagu 30 sano ina soo wadnay halganka taariikh lama arag 30 sano halgan soo socday qaybtayna wayna soo gudanay qolo kale oo fayow maxaa yeelay innagoo sida la xitaa haddii halganka inaga fashilma hadda cid sii qaadi kartaa ma jiro halganka maxaa yeelay cid caafimaad qabta oo laga helayo kii fikirka qallooca halkan lagu dhex waday ee sidan ahaa hadduu u noqdo kii bari hoggaanka u noqon lahaa ummadda ma suuroobayso marka waa inaynu chapterka intaynu iska soo xidhno oo nidhaahno annagu halkaasay tabartanadii ku dhammaatay kolka waxoogaa laga soo wareegay jiil cusub meeshii dulmi jiray kolley goonadoogu jiri jiil cusub oo nadiifi ha bilow haddii kale haddaynu dhow yahay saxan waxaan aad ugu celcelinayaa ceeb ma aha in la kala fikir duwanaado laakiin waxaa ceeb ah in si xun loo turjubo fikirka waa inaad soo horfadhiisan karta naftiwaraha walaalkaa walaashaa ood u sheegi karta waxaana khaldan waxaanay sidana oo intaad doodaan deedna aad meel ku wada dili kartaan taasaa la rabaa laakiin haddaad ninba meel ula kaco ama gabdho meel ula kacdo waxba yaan hadalka ku celcelinin waynu garanaynaa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa halgankan waad ogtihiin taariikhda inama soo marin dhibkay halgankan inaga soo maray weli halgan ciduu ka soo maray lama arag mana garan doono halganka ku xigaayay siduu u noqon doono ma garanayo inuu ka darnaan doono aad maskaxdeenu uma qaadmalayso oo wax ka daran baa iman kara ismadi ummaddii aynu rugnay ee aynu intaas dadka ku ururinaynin ee ruux walba qayb ku leeyahay ruux buu soo xubinayay soo maaha ruux walba si loo kala muddo dheeraa waa loo kala muxuu ahaa dembi bannaanaya kumanaan kun oo qof oo soo kaxeeyay baa meel alla meel ku dambeeyay hadda war lahayn oo shahiiday qaar la waayay mas-uuliyaddeeda kaa iyo agoonku ka tegay anaa qaaday haddaana daacad ka noqonin aakhirna waa lagula xisaabtan maxaa yeelay anaa waxaan ugu baaqay anigaa u horseeday gooniwaynu gaaraynaa ama jannaynu gelaynaa baan ku idhi kii noocaa haddaan fidno ku dhaliyo oo isagoo cudurkii qaba uu ku dhinto aakhiradiisina u waay adduunkiisina waay soo maaha marka inaynu aakhiriya adduunkiiba seegno sax maaha inteenna sida loo kala da'weyn yahay
ama halka kale ugu soo kala horeeyay xoog badan baa inaga soo galay